safiirka dowladda Qatar ee walaalaha nahay hay'adda Qatar Charity iyo runtii maamulka gobolka Banaadir xarunta aan joogno oo agoonta runtii aad iyo aad aan runtii maanta ugu faraxsanahay in garab istaagii ay markasta dowladda Qatar ee walaalaha ayna garab istaagnaday ee maanta qayb kamid ah halkan taagan tahay dabcan 6,000 oo qoys oo runtii la bixinayo xilliga Ramadaanka lagu jiro wax weyn waayay oo dalka guud ahaan laga bixinayo qaasatan dadka ugu nugul oo runtii agoonta iyo dadka ugu nugul la siinayo marka ugu mahad celinayna dabcan ummadda Soomaaliyeed xaalad adag ay ku jirtaa abaar xunaa jirto gees way bilaabatay dowladaha saaxiibadana la ah walaalahana ah qaasan dowladaha muslimka way soo bilaabeen gurmadkii waana idin imaan doonaa meel kasta oo aad joogtaan ilaa iyo sayrac jooga ama ilaa iyo doobley jooga iyo inta u dhaxaysaba gurmadku wuu imaan doonaa maalmahan oo dhan qayladhaanta waan wadnay laakiin alxamdulillah way bilaabatay guulayna maanta ku bilaabatay dadka ugu nugulay ku bilaabatay inta karantood iyo meel kasta joogtana waa soo gaaraynaa ilaahayna abaarta naga qaado ilaahay roobka noo soo dedejiyo ilaahay mataqaanaa qacantiisa weyn qacantiisa nagu barakeeyo aad iyo aad u mahadsantahay